waxa weeye dadkaan arkaysaan dhalinyaro halkaa fadhiya waa dhalinyaro 20 iyo wixii maartay la jira ah hooyooyinkii baan ka marnayn oo la socda cid lacag soo siisay iyo cid soo qasabtay iyo nin qabiil ku jooga midna ma leh waa un dad isbiriido oo og waxa la yiri Soomaalidu waxay ku maamaadaa libaax baa nin gaday nin galaday iyo nin gaday maxay og Xasan Cali Khayre mudane Xasan Cali Khayre wuxuu dalkan qabtay waa la og yahay marqaati baanu ka nahay shalayna asagoo shaqo ku maqan oo Dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 raba inuu Soomaaliya xalkeedii meesha aadi lahayd u jooga ayaa la dhaqray waxa ku dhaqray wax kale ma ahayn waxa weeye wuxuu faansanaa Soomaaliya meesha ay rabto inay aado waxa weeye Soomaaliya inay doorashada 2020-21 ay noqoto doorasho Soomaalidu ku qacsan tahay loo midaysan yahay ayuu soo jeediyay taa ayuu sababsay tii uu sababsay oo laga diiday oo lagu tuuray ayaa maanta ayadoo indhala'aana dalkii lagu wada arkaysaan waxa weeye in nabad sugid iyo la soo qortay si doorasho loogu shubto taa waa ka digaynaa daanahay dhalinyarada Soomaaliyeed ogolaan mayno in waxa weeyaan ciidankii difaaca dalka loogu talagalay inay ka qayb qaataan doorashada taa dawladdu waa ku dhaliilaynaa waan uga digaynaa haddaanahay dhalinyarada anigu ku hadlaya afka dhalinyarada saddexda gobol ee maamul goboleedka Jubbaland waxaan si buuxda u soo dhaweynaynaa xalfadda lagu soo dhaweynayo madaxweynaha mustaqbalka Xasan Cali Khayre waxaan oran karnaa madaxweynaha soo socdo mustaqbalka wax laga taariikhay kara ama taariikhdiisa meesha lagu soo koobi kara maaha waxaan ognahay 30 sano oo bilaa abdheeda soo marnay oo burbur iyo ma garanaysaa masiibooyin badan aan soo marnay waxaan ku diirsanay 3 sano iyo barka uu madaxweyne ra'iisul wasaaraha inoo ahaa mudane Xasan Cali Khayre hadda waxaan rajaynaynaa inuu noqdo madaxweynaha soo socdo mustaqbalka ilaa 50 sano kadib adduunka madaxweyne aan hadda ma aaminsan hadana bulshada hadda Soomaaliyeed ra'iisul wasaarihii Xasan Cali Khayre inuu fursadii loo hayo dhalinyarada inuu ka baxo meesha waxaan aaminsanahay inuu wali soo taagay dad baa aaminsan inuu ra'iisul wasaarihi hadda u taxadirka waxaan jeclaan lahaa markii magaciisa la sheego madaxweynaha mustaqbalka in hal mar u istaagtaan jeclaan lahaa hal mar u istaag inta jecel madaxweynaha u istaaga aad baa u maasantiin الله فضيلته وما سنتين حسن على غيره wax maanta lagu soo koobi kara xalfadiisa meeshan ama amaanti samaha ama baykroki samaha حسن على غيره Soomaaliya wuu soo samata bixiyay wuu ka soo shaqeeyay waxaan oran karnaa waa dhalinyarada waqtiga hadda joogta ninkii dhaaw kala qaaday way anaga dawladda ku horeysay maana garaneyn boo yareen saamaan sana inta hadda meesha fadhiso Soomaaliya wax yar oo qaliilaha dawladda hore soo arkay inta kale waa dhalinyaro waxaan leenahay mudane Xasan Cali Khayre haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed anka Jubbaland ma dhahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee daafaha dunida dacaladeeda kala nool waxaan jeclaan lahaa in si buuxda loo taageero Xasan Cali Khayre waxba ka faa'iido anaga wax ka faa'iido maaha mid anaga hadda laaluusha lagu siiyo maaha mid hadda uu macnaheedu asaga lagu dhiirigeliyo hal doortu leeyahay maaha laakiin waa aragtida Soomaaliya ama indhaha Soomaaliya leeyahay kara madaxweynaha mustaqbalka mudane Xasan Cali Khayre waxaan leeyahay Xasan Cali Khayre dalka iyo dadka ku baahan anaga ku baahan adiga loo baahan waqti xaadirka la joogo waxaan jeclaan lahayn kumanaan asoo kale Soomaaliya ka soo baadaan heli lahayn fuujikeena ma dhumin mustaqbalkeena ma baabeen tahriib lama aadeen دول لما رأين اللي قال سوماليا وعوي وحكون جرلين إسبارو أما عن بلها جوجنا عن هول بسوق هذا الأسبوع لينا الجوجلين وحنا مدن مدح وينه وكجعل هاي وكسور ويننا غصت أنا كوهلا يا أفكا دليرنا جبويكا سودو هذا ما كتا سوماليا نولاتو سوماليا هجرتو هجوكتو سوماليا ها إسراعدو Soomaaliya han midowdo marka wax yar oo gaaraara markay idin tirin doona insha Allah in kastoon xabeebanahay
حسن علي غير إله وحاسد كاغا جبي حسوسا نقول ريبتان حسن علي غير إله وحاسد كاغا جبي حسوسا نقول ريبتان لحيق سنة حمر إيه قبل انت بوال حترين يا حرومها كل قد حسب بيكوايان كواد حبسية كانت حيسك وقبان كواد حبسية كانت حيسك وقبان حسن وحركات كوقبا كرسيك أدون حاسد كهور إيمان horta xasan cali khayre inagoo dhan saa wada ognahay ma ahan qof ammaantiisa hal iyo laba ama saddex inta lagu soo koobi karo laakiin qof kastaba garashada sibay u gashaayeen maxaa yeelay qof kasta wuxuu markaa asaga fahmo waxa Soomaali waxay dhahdaa ninba wuxuu fiirsado ma dhiman ma fahanteen marka waxaan hal dhijiri rabaa inaan dhalinyarada aan u sheego oo xasuusiyo dhalinyarada oo iskugu jirto habla iyo wiilalba horta xasan cali khayre asagi iyo isku duubnaa wasiiradiisa isla jiro waxay sare u qaadeen manhaj cusub ay u soo saareen waxbarashada maasha Allah horta inaga wadamada yani kale oo aan badanaa waxbarasho u aadi jirnay laakiin hadeer manhajka la soo saaray haddii sida ay tahay annaga aan u qaadano madaxweynena aan oga dhigano xasan cali khayre maasha Allah nin kastaba banaan ma aadi doono insha Allah sidaan rajeynayo midda kale wuxuu xasan cali khayre sidaan ognahay oo kor u qaaday dhaqaalihii oo xitaa uu maxal dhijri albaab kasta u qaraacay sidii nalooga cafin lahaa deemiyii annaga markaa nalagu lahaa in aan u yeelan lahayn akoon oo yani qof kastaba maxal dhijri Soomaaliya uu garwaaqsan karo uuna ogaan karo midda saddexaad oo aan rabo halkan inaan ka sheego dhalinyarada xasuusiyo waa sportska xasan cali khayre iyo wasiiradii kulli oo isla jireen waxay ileen meelba qof baa madax ka ah mugtahay xasan cali khayre wasiirada asaga hogaamiye u ahaa isaga ay maxal dhijri go'aan kasta oo ay ku dhaqaaqayaan ay ka qaadan jireen hadduu yahay maxal dhijri kan waxbarashada hadduu yahay kan ciyaaraha hadduu yahay kan dhaqaalahaba kulli isaga hor waday oo siinayay jaaniska ahayd in qof kastaba sida ay u tahay oo wax u qabto waxaan ognahay garoomo inuu dhisay oo maasha Allah tiyaatarkii Soomaaliya uu ku jirto garoomadii maxal dhijri la wada dhisay kulli midda kale waxaan ognahay in dhalinyaro badan oo hooyooyinkooda maadaama dadka hadda inta soo istaagayo kulli maasha Allah ay wada kor istaageen qodobka maasha Allah qof dad kasta way ka hadleen oo ahaa in uu ka soo daayay xabsiyadii dadka kale maxal dhijri wadamada kale ay dhalinyarada nooga maqnaayeen oo xitaa video maalin aan daawanayay marka la soo deynayay dhalinyarada qaar markay inta imaadeen waxay la dhaceen kuwa qaar sujuud la dhaceen ma bande marka qofkii jaaniska u siiyay in ay wadankooda ku soo laabtaan caradii maxal dhijri intay saa u cantoobsadeen ee maxal dhijri dhunkanayeen inta hilowga ay u qabeen qofkii dib ugu soo celiyay maasha Allah ninkaas wuu mudan yahay in la taageero wuxuuna mudan yahay xasan cali khayre in la garab istaago haddii aan nahay dadkii Soomaaliyeed ha ahaato ishageen Jubbaland ha ahaato gobolada kulli sidee u dhannahayba xasan cali khayre waa qofka kaliya na xukumi karo ahna qofka kaliya ee dhalinyarada taageeraha ka hesho zaid aniga runta ahaantii مو ملنا إن سياسة يعني أردور أنكو يلان كرنو لكن حسن علي خير وحوها قف كنوب بدأمية إن تصينا إن أنكو يلان كرنو الدور أنا دن كنا أنا سيدو كلا أنكسو يستوي كرنو أو قف والبا Soomaali ay u siman tahay siyaasadda oo qof kastana uu istaagi karo qofkiina tusay ayuu ahaa wuxuu kaloo tusay Xasan Cali Khayre inaan nahay indhaha shacabka Soomaaliyeed haddii aan nahay dhalinyarada Xasan Cali Khayre waa qofka kaliya gubabada badana dhalinyarada ay ka hesho maasha Allah Xasan Cali Khayre waa iftiin ku dhex jiro siyaasadda Soomaaliya hadeer dadkoo dhan ay wada eegayaan ma fahanteen marka annagana waxaan looga baahan yahay Jubbaland saa u nahay inaan garab istaagno taageero buuxana aan siino mudanaha musharaxa hada taagan Xasan Cali Khayre
dhammaantiin waa mahadsantiin. xafladan waxaan usoo dhaweynaa aad iyo aad waxaan lagu taageerayaa mudane xasan cali khayre madaxweynaha mustaqbalka. waxaan ognahay inta yar uu 3 sano iyo bar intuu hayay waxa uu noo soo qabtay. waxa uu soo qabtay hooyooyinkii hoogay oo bacay ilmahoodii lagu xiray gobolada lagu xiray dalka dibadiisa uu keenay ayagoo ismoogaa 45 sano qaaraan arkin ayaa jira isku ooy oo ayagoo yar yar ka tagay. waxa uu noo qabtay aad iyo aad baan u garanaynaa. waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow xasan cali khayre. haddana hooyooyinka Soomaaliyeed madaxweynaheena mustaqbalka xasan cali khayre aad iyo aad ayaan u garab taagnaanaynaa. waxaan u garab taagnaanaynaa waxqabadka ummadda Soomaaliyeed uu qabtay. waxaan ognahay in xasan cali khayre intii yar uu hayay wax badan uu qabtay dhalinyarada uu wax ka bedelay ciidanka uu wax ka bedelay waxqabadka Soomaaliya laftigiisa wax ka bedelay sababtoo ah dad aan wili aan isku imaan ayuu isku keenay dad kala maqnaa ayuu qosol dhex dhigay. marka maadaama uu xasan cali khayre aan dooranayno waxaan ku dooranaynaa wanaaga waxqabadka inaan ku soo dhaweyno. waxaan hadda leeyahay wax yar oo gabaya idinka dhex gelinaya. xasan cali khayre ilaahu xaasidkaaga jabi xayeysiin ma aha xakaayada waa dhabti. kuwaad xabsiyada ka keentay ayaad xasuus ku haya xilli kasta xigtadiisu waa shacabka. waa maadsanti jaale madaxweyne soo dhawow ayaan leenahay. miiska ayuu noo saaran yahay waxa u dhiman waa dhaar. sida aan ula garab istaagana xasan cali khayre maalintu Kismaayo ma sidaan usoo dhaweynaa maanta oo taariikhdu ay tahay November. aad baan ugu faraxsanahay in xasan cali khayre aan soo dhaweyno musharax ah. waxaan maanta Jubbaland waxay ka mid tahay maamul goboleedka ugu horeeyo oo mar walba go'aan leh oo tayo leh oo karti leh. marka waan soo dhaweynaynaa insha Allah xasan cali khayrna waxaan rajaynaynaa sanadkan inuu sanadkiisa yahay oo ku guuleysto insha Allah.